waxaan idiin soo gudbi doonaa xiriirka intuu u dhaxeeyo gaar ahaan waxaan ka hadli doonaa nolosha jacaylka waxaa jiro xiriir jacayl oo qurux badan iyo xiiso jacayl maxay kala yihiin labadaas ayaan caawa faaqidi doonaa si ay u bartaan saaxiibo badan oo ku xiran barteena YouTube-ka ee Socdaal 24 iyo barteena TikTok-ga Socdaal 24 anagu badankan waxaan u badannahay xiriir jacayl oo xiiso badan waxaa jiro in qof nafteena uu ku soo biiro laakiin waxa uu sameeyaa durbaba sidii adigu uu kugu soo jiida lahaay haddii ay noqon lahaayeen ereyada macaan iyo naxariis oo markaasi uu doonayo inuu qalbigaada kugu hanto laakiin sidaas oo ay tahay mar walba waxa uu isku dayayaa sidii adigu uu ku hana lahaay waqtigiisa ugu badan ayuu wuxuu gelinayaa sidii uu ku maqli lahaay codkaada iyo oraahada macaan waxa uu isku dayayaa saacad walba oo kamid ah noloshaada inuu ku soo xasuusto bilooyin maalmo isbuucyo waxa qaadanaysaa waqti qurux badan nafsadaada ayaadna su'aalo weydiinaysaa marka su'aalaha aad nafsadaada weydiisa ayaa waxa kamid noqonaya qofkan inuu ku jecel yahay iyo inuu ku xiiseenayo inkastoo aadan sawiri karin haddana qofka sidaas oo idil ku soo xiriirinaya qalbigiisa waxa ku jiro laakiin waxaad aaminaysaa qofkaasi inuu ku jecel yahay muddo kadib waxaa yaraanaya xiisihii iyo waqtigii faraha badnaa uu ku gelinayay waxaana cashirkeena ama caawa warbixinteena aan ka baran doonaa sida ciwaankeeda horena aan igu soo sheegay tahay xiise jacayl iyo xiriir jacayl sidaas oo ay tahay qofka xiisaha maalmaha quruxda badan oo ku xiiseenayo waxaad ku baranaysaa waxyaabo fara badan xiisahaas waxa ay keeni kartaa jacayl xad dhaaf ah inaad u qaado qofkaas meel cidlaan uu kaaga dhaqaaqo maxaa kula gudboon inta qofkaas uu ku xiiseenay inaad samaysid sideena ku dareemi kartaa qofkaasi inuu yahay qof adiga ku xiiseenayo oo kaliya waxaa jiro qofkan inuu waqtigiisa ugu badan uu ku gelinayo sida adigu uu kugu hana lahaay mar walbana uu isku dayayo sheekadaada iyo waxyaabaha adigu kugu saabsan inuu helo laakiin maalmo kadib waxaa imaanayso haddii aysan sheekadu hore u socon in la kala dhaqaaqo ama la kala tago waxaan gudageli doonaa qofka ku jecel siyaabaha ku ogaa kartid qofka ku jecel wuxuu kaaga fakaraa si aysan dadka kale kaaga fakirin wuxuu isku dayaa mar walba inuu raadiyo codkaada iyo oraahada macaan wuxuu kaaga damqadaa si adiga aadan iskaga damqan waxa uu dareemaa xanuun marka adiga aad ka maqan tahay saacad walba waxa qalbigiisa ku jira waxay tahay adiga sida uu kugu heli lahaay ama uu kugu guuleysan lahaay wuxuu iska ilaaliyaa wax walba oo sharaftaada hoos u dhigaayo waxa uu mar walba isku dayaa sidii adiga uu sharaftaada hore ugu qaadi lahaay mar walba waxa uu isku dayaa ubaxyada iyo waxyaabaha jaceylkiina lagu guul gaarsiin karo inuu mar walba sameeyo way ku adag tahay mar walba inuu ka murugeysiyo ruuxa daacadda ku ah asagoo heli karo mar walba inuu ka farxiyo haddii qof daacad ah heshid waxaad heshayd jacayl daacad ah inkastoo ay adag tahay inay sahlaan laba qof oo daacad ah haddana sidaas oo ay tahay daacadnimadu waxay tahay mid mar walba ay ka dhaxayso labada qof ee xiriirka jacaylka sameynayo hubaal haddii maanta qof daacad ah heshid waxa hubaal ah in qofkaasi mar walba si joogto ah uu kaaga fakari doono ereyada macaan kalimaha suugaanta orahaha macaan mar walba waxay yihiin kuwo mar walba uu kugu soo xasuusanayo mararka qaar qalad ah ku sameysay waxa uu uma arkaayo sababtoo waxa tahay qofka kaliya ee dunidan uu ka doortay ama uu ka daneynayo adiga daawanayo muuqaalka ma haysataa qofku daacad ah haddii jawaabtu ay tahay noogu reeb qaybta commentiga ma jira qof xiisihiisi oo kugu badnaay kadibna jacayl hadaa u qaado oo ka tagay waxa idiin soo gudbinaya anigoo ah mahad abuukar maxamed socdaal waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24 inta ku kulmi doono warbixin noocan oo kala sidaas nabadgelyo